الحمد لله رب العالمين maanta duulaana Soomaaliya waxa ku soo qaaday ciidanka Kenya oo awal u joogay wadanka ilaa ahaan AMISOM ahaan u joogay maanta wixii laga bilaawdo waxaan rabnaa in AMISOM laga saaro baarlamaanka Soomaaliya loo yeero maxaa la fasax ay ka soo noqdaan qaraar cad ay ka soo saaraan arintaas wadanku waa lagu soo duulay mucaarad iyo muxaafidna ma jiro Soomaaliya hal difaac wadanka hadda waa la difaac ciidanka xoogga dalka Soomaaliya difaac dhammaan Soomaaliya inay ka qayb qaadato way dagaalkan la iska joojiyo mucaaradnimadii wadanka difaac u baahan yahay kheyraadka ugu badan wadanka ayaa ka helay wala ka warqabtaan jaadkan iyo ganacsi iyo shaqaalahooda dhan 20,000 oo shaqaale inta u jiro wadankii dadkii hadda kor badeena waa tii ay maxaa la leeyahay xoog ku haystaan ay doonayaan markan dadka hadda ciidamadaas hor kacayana waa Axmed Madoobe oo raba inuu badda Soomaaliya u xalaalteeyo balanu soo galay markan Soomaaliya badeeda ha difaacdo dalkeeda ha difaacdo dhammaan xildhibaanadana fasaxa ka soo laabtaan guddoonkan ka codsanayna inuu soo celiyo si ay qaraar ugu gaaraan arintan AMISOM in laga saaro maxaa la leeyahay Kenya ciidamada Kenya maanta wixii laga bilaawday waxaan soo jeedinaa AMISOM inaysan kamid ahayn laga saaro waa dad raba wadanka Soomaaliya inay xoog ku qabsadaan ay duulaan ku qabsadaan marka min fadlag Soomaaliyay wadanka la difaaco mucaarad iyo muxaafid ma jiro la iska qabto difaaca gooda daadanayo wax ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed hal barbar istaag waxaan u dhaaranay waxay ahayd dalka iyo diinta iyo dadka inaan difaacno waa difaacayna dawladuna waxa laga rabaa maxaa la leeyahay wadankan in ay arin degdeg ah baarlamaanka la isugu yeero oo baarlamaankan qaraar ka soo saaray Kenya in laga saaro AMISOM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.